asxaabay maantana waxaa noo wada xalqadii ugu dambeeyay anime-geena maantana waxaa noo hadhayba 2 xalqo kaliya markaan labada xalqo noo soo khulaasay su'aalaha jiray muuqaalka like saara kanaalka nagu soo biro subscribe saar naguna tuura tankee iminkana inoo bilaaba xalqadeena maanta xalqadeena waxay noogu joogtay wiilkii saaxiibka ay ahaayeen Tomo kaasoo yeeshay awood kaasoo noqdayna wiil isbedel jirkiisa markaasaa saaxiibka la hadla wuxuuna ku dhaha saaxiib awood badan yeelatay kaale isku dhacnay kadib markay isla yimaadaan keynta ay wax bilaabeen isdagaalaan kadib markaa waxaa laga adkaadaa wiilkii wuxuuna ku idhaahdaa waa asiga kastoo awood yeelatay aniga ma adkaanaysa saaxiibkina wuxuu bilaabay inuu tahniyadeeyo ku dhaha mahadsan tahay dadkiina waxay bilaabeen inay tababar fiican qaataan oo jiniyaan iyo yacni qaar saaxiriin ay awoodooda inay isticmaalaan oo ay keynta kiciyaan dab noloshuna waxay ahayd mid aad u fiican labadii wiilna waxay bilaabeen inay iska ugaarsadaan kaynta xayawaanada ku jiray gaar ahaan xisaankii ku lahaa dhanka geeska kadib marka ay soo ugaarsadaan ayaa wax yimaada rag kaloo gaagaaban waxayna ku idhaahdaan anagu waxaan caalam ku noolnahay bil wax jirkeena iska bedeli ma jiro ee maxaa naga khaldan maase wuxuu ku idhahdaa wax naga khaldan maxaa iga sheegaysiin ee orda iga tagaan wax kama ogiye kadibna wiilkii waxa uu dilaa khansiir kadibna wuxuu bilaabay in hilibkiisa uu cuno wuxuuna la hadlaa saaxiibkii wuxuuna idhaahdaa hadda waxaa soo dhawaada waqtigan aan isticmaalayn awoodda xisaanka inuu bilaabo inuu soo nooleeyo kadibna meesha waxaa imaadeeyey ama yacni di'aab kadibna iyadaas waxay bilaabeen la hadlaan gabadhii waxayna bilaabeen in gabdha yacni ay jeclaadaan kadibna gabadhi waxay bilaabeen in soo dhaweeyaan yeydii kadibna gabadhii timaa casid waxay la dagaalantaa yeyigaasina wuxuu yeeshay awood kadibna waxay ku tiraahdaa gabadhii waxaan maqlay in yeydin lasoo weeraray oo ay ka dambeeyeen ay lasoo weeraray haykalo cadmi ama yacni qalfoof kuwaasoo raba inay yacni bilaadanka iyo jiminka inay dilaan kadibna gabadhi waxay ku tiraahdaa haddaba soo tababaranayaa waxaana rabaa inaan qaato tababar siaan iska difaaca haddii haykalo cadmiga iga soo baxaan kadibna habeenka markii la gaaro wiilku wuxuu dareemaa in lasoo weeraray keyntaasna waxaa soo weeraray haykalo cadmigaan sheegaynay oo waxayna bilaabeen soo bursadaan yeydii haykalo cadmigii ama yacni qalfoofkii ayaa wiilku markuu arko ayuu wuxuu isticmaalay awoodihiisii wuxuuna bilaabay inuu qaar badan uu ka laayo kadib markuu ka laayo mid wuxuu bilaabay madaxa fujiyo mid kalena wuxuu bilaabay inuu yacni uu dhulka ku jiido laakiin haykalo cadmiga waxay ahaayeen kuwo aad u badan wiilkuna waa xakamin kari waayaan waxayna bilaabeen inay soo jiiraan laakiin waxaa caawiyay saaxiibadii waxayna bilaabeen inay haykalo cadmiga iyagana laayaan oo ay qaar badan ka dilaan haykalo cadmigiina way dabar jaraa laakiin haykalo cadmigu maaha kuwa dhamaanayo waxayna bilaabeen hadal mar ay soo laabtaan koox kaloo kasii badan kuwii hore wiilkuna wuxuu isticmaala awoodahooga wuxuuna yeeshaa mid awoodahooga yani wuxuuna noqdaa wiil lafaa oo jirkiisu lafihii jirkiisa ayaa u qarsoonaa kadibna iyadoo yimaada wiilkiina waxay bilaabaa inay u fariistaan yani ixtiraaman ku idhahdaan waa maasnatiisaan nooga badbaadisay haykalo cadmiga waxayna idhaha anagoo iska jirna godka iska raaraasanayna dahab ayay hal mar aragnay haykalo cadmiga soo weerareen waxayna rabeen inay kowna gaysiyaan laakiin adiga aad maanta u mahadsan sababtoo waxaa naga badbaadisay dhimasho kadib wiilku wuxuu ku dhahda waxaas ka baxa laakiin inaga ayaan iga shakisanahay ina ka dambeyseen yani saa samaysiin laakiin waxay idhahdaan may anagu waxaas kama dambeyn ee waxaan faj ahaan ama yacni kisaama naga soo bixin wiilkii markuu keynta yimaado ayuu wuxuu arkaa raggaasoo soo weeraraya keynta raggaasna waa rag bil'aadana ma ahana jinniyaal kadib markuu raggii uu arko ayaa wuxuu isku daya inuu ka hortago wuxuuna bilaabay inuu shabagiisa isticmaalo si uu u dhagaysto ay ka sheekaysanayaan raggaasina waxay ka sheekaysanayaan inay soo afduumaan gabadha boqorku dhalay gabadhaas hadday helaan oy kow kaga siiyaan ama dhiigeeda ay cabaan waxay noqonayaan rag aad u awood badan kadib wiilku wuxuu idhaahdaa waa ina ka hortagaa raggaas intaysan gabadha yar boqoradda ay miskiinta ayna soo afduuban kadibna wiilkii markuu arko ayaa wuxuu yimaadaa raggii wuxuuna ku idhaahdaa ma waxaad ka darrabtay inaad soo afduubateen gabadha laakiin raggii waxay bilaabeen soo weeras dhahan laakiin daqiiqada gudaheed kaga guulaystaa wuxuuna bilaabay inuu qaar fara badan u afduubo shabay ku xidhxidho kadibna raggii way isdhiibaan kadibna subaxii markii la gaaro gabadhi yarba soo toosta waxayna aragtaa in yacni wiilku ka soo horjeedo oo reeri marka horeba saxaabi ay soo afduubeen laakiin waxay doonayeen inay haddana ay soo afduumaan gabadh kaloo boqorku dhalay kadibna gabadhi markii wiilku badbaaday wuxuu ku idhaahdaa anigu dhibaato kuma geysanay keliya aabbaha baan kuu geynaya kadibna gabadhi markii kusoo dhaabto tuuladeedii ayaa raggi waxay isku dayeen wiilkiina soo weeran laakiin gabadhi ay hor istaagto waxay ku tiraahdaa wiilka wiil fiican haweerarin oo ni baraya fadlan kadib markay gabadhi ku tiraa haweerarin ee rag waxay bilaabeen leebka hoos u dhigaan waxayna arkaan in wiilka hore u dilay iyaga waxayna bilaabeen iska aamusaan kadib boqorka markuu gabadhi u keeno wiilkii boqorka wuxuu bilaabeen inuu mahad celiyo wuxuuna ku idhaahdaa ilaa odaa farmaran kuma igama tegaysid waxaan ku siinaya silaax inuu siiya isaga saaxiibkii wuxuuna ku dhaha silaax markaad u baahan tahay ee khatar ay kugu soo wajahan tahay ee isticmaali kartaa saaxiib hadda laga bilaabo labadan heshiis ayaan nahay waxaana ku ogolahay in adigu dahabkiiyo waxaad doontid aad ka gurata kaynta yani dhanka anigu aan maamlo dhanka adigu aad maamishin maaha kadib wiilku ula yaaba wuxuuna ku idhaahdaa haddii mid saas tahay adba aad ayaan u mahadsan tahay anigoo keliya gabadhaada ay ku badbaadiyey
ma waxaas ixsaan waxaad igu samaynaysaa in gabadhaada keliya aan kuu badbaadiyo. Ninkan boqorka wuxuu idhaahdaa taas maaha gabadha keliya laakiin waa qalbigayga qayb ka mid a. Markaasaa wiilkii wuxuu bilaabay inuu la yaabo hadalkiisa, waayo waa aabba wax dhalay, midaasna kalama yaabayo. Wiilkuna wuxuu ku qayliyaa wuxuuna ku idhaahdaa, hay aniga hadda waxaad igu ogolaatay inaad dahabkaasoo dhan u urursado keliya gabadhaada yar badbaadiyey. Markaasuu wuxuu ku idhahdaa haa saasaan kuugu ogolaaday. Kadibna waxaana la barayaa gabadhaasna gabadh yar qalqaaliyada waxayna ku tiraahdaa waa in salaam asxaabtaydii. Kadib rag waxay bilaabeen ay tababartaan oo ay qaar fara badan yacni ay ka soo baxaan kuwa awoodo leh oo awoodo u siiyey ninkii boqorkii. Kooxdiina waxay noqdeen qaar u awood badan waxayna maamulaan kayntii. Waxaana wiilku isku dayaa inuu ka hortago haykal cadmi kastoo soo weerar isdhaho. Wiilkiina wuxuu isticmaalaa awoodihiisa wuxuuna bilaabay in qaar badan nolosha uu ku gubo. Qaar fara badan oo jinniyaasha ka mid ah ka cabsoonaya iyagana wuxuu bilaabay ka mahad yacni ay ka mahad celiyeen wiilka waxayna ku idhaahdaan waa mahadsan tahay. Kadibna jinniyaasha yaraa ayaa waxay bilaabeen in kaynta yacni ay ka bilaabaan qallaaso. Wiilka ayaana loo sheegaa. Wiilkiina wuxuu isku dayay inuu qallaaso ugu dumis dhaho. Saaxiibka ayaana la hadlo wuxuuna ku idhahdaa saaxiib adigu maxaad noogu filan tahay masukara maxaad ka wadaa haddii aa maanta aad aragtid qof yacni qallaaso ka bilaabaya kaynta dhexdeeda adiga aan kuga hadlay saaxiib qofkii aad aragtid yacni soo qallaasay iyo dhibaato samaynaya qoorta ka jar. Markaasa saaxiibka la hadlo wuxuuna ku idhahdaa maxaa saas u samaynaysaa wuxuuna bilaabay inuu ku qaylo ku idhaahdo aniga maxaad amarka noocaas ii siinaysaa ma wax shibaad ii malaynaysaa mise baal qof saadoo kale camal oo kalaa. Kadib wiilkii wuxuu bilaabay inuu shaleeyo iska murugoodo sababtuu shaleeyana mar hore yacni xayawaan musikiisa u dilay wuxuuna la kulmaa saaxiibadiina waa tii gabadhii hore inuu soo sheegay. Wiilkiina wuxuu isku bilaabaa inuu isku baliimo habeenkii oo yacni gabadhaana ku idhaahdo habeenkaas xaggaas igu imo wiilkaana ku idhahdo habeenka xaggaas igu imo. Kadib markaas la kulmaa waxay bilaabeen jacaylkooda isku soo bandhigtaan yacni mid walba jacaylkii qalbiga ku hayay uu mid kale soo bandhigto. Kadibna subaxii markii la gaaro waxay dilaan xasharaadkaas markuu dilo wiilku wuxuu yeeshay xasharaadka awooddiisa kale wuxuuna awoodaa inuu hadda duuli karo aad ayuuna u farxaa markuu arko awoodda noocaas. Saaxiibadiina aad ayay ugu farxaan. Markaa waxaa dhacay roobkaas kadib waxay yimaadeen jinniyaashii gabadha boqorku uu soo diray wuxuuna ku idhahdaa ninkii boqorka ayaa kuu baahan wuxuuna rabaa inuu arrin kuu sheego. Markaasuu wiilku wuxuu ku idhahdaa waqti ma hayo ee mar kale aan u tagi. Kadib rag waxay ka sheekeeyaan inay iyagu markii hore aslan ahay bini'aadan laakiin hadda bini'aadanimada ay ka fogaadeen ama yacni ay iska daaheen. Markaasuu wuxuu ku idhahdaa sabab u daysin bini'aadanimo ama yacni iska bedesheen. Markaasuu wuxuu idhahdaa anaga markaasaan kaynta u soo galnayba bini'aadanimadeena way isbedeshay waxaana noqonay jinniyaal. Wiilkiina wuxuu fahmaa in yacni qof kastoo soo gala kaynta uu isbedelayo si isaguba isku bedelay. Qaarkii ku dhashay yacni kaynta u dhex dhashayna ay bini'aadanka ahaan ay weligood ayagoo xayawaan ahaanayaan. Kadib subaxdii markii la gaaro ayaa waxaa dhacay in loo sheego dagaalkaa cusub ka dhici doona kaynta dhex bartanaheeda. Kadib wiilku wuxuu yimaadaa kayntii lagu lahaa dagaal ayaa ka socda. Kadib dagaalkii markuu meesha yimaado wuxuu bilaabay in awooddiisa isticmaalo oo qaar fara badan saaxiirana iyagana caawiyaan. Waxayna soo galaan saldhigyadii ku lahayn bini'aadanku. Saldhigyadaasna waa saldhigyo halis oo dadku ay ka caawin jireen mar walba way oran jireen waa saldhigyo dadka shayaadiinta ee wanaagsan ama yacni dadka jinniyaasha masaakiimaha lagu afduubto kadibna lagu dilo. Raggiina markay bilaabeen inay soo weeraraan ayaa waxaa soo baxday gabadh bini'aadan. Gabadhaasina waa gabadh aad u awood badan waana hogaamiyaha kooxdooda waxayna bilaabeen isticmaasho awoodo kala duwan. Wiilkuna wuu la yaabay wuxuuna idhaahdaa alla gabadhan waa gabadh aad u awood badan. Markaasaa wiilku wuxuu bilaabay inuu gabadhii ka adkaado kor u tuuro. Kadib markay gabadhu kor u tuuro gabadhu waxay tiraahdaa aniga miyaa saad yar fudud ii kala tuuraysaa adigoo aan nooca ugu xun xayawaanada oo weliba xayawaan aad tahay. Markaasuu wiilku wuxuu ku idhahdaa xayawaan ma ihi haddaad adigu rabtiin iska ticilin kartaa. Dhanka kale wiilka saaxiibka ahayn isagana wuxuu yeeshay awood wuxuuna bilaabay inuu bini'aadankii qaar fadmo ka takhaluso. Gabadhii kale hogaamiye ahayn wiilku waxay bilaabeen inay soo weerarto laakiin wiilku wuxuu bilaabay inuu diriiciisa iskaga dhigo yacni iska difaaco awoodaheeda ku soo dhacaya. Kadibna gabadhu way la yaabtay waxayna tiraahdaa qofkan ma ahan qof jinniya sababta hadduu jinni ahaan lahaa mar hore ku dhiman lahaa awoodahayga. haddaba saxaabada maanta xalqadan xaggaas inoogu dhammaanaysaa fadlan muuqaalka like saar kanaalkana kusoo biro subscribe saar maca asalaama waa shuufanku fi xalqa jaaye.